bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay mowduucan soo socda hadduu eeba idmayntu muuqaalku soconayo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan Somaliland kaasoo ah war xasaasi ah iyo xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro oo intay xukunka haysay dadkii ugu badnaa laysay caburisay dad dhaawacmay dad la dilay dhalinyaro carartay ayaad ku maqli doontaan intaan ku soo gudbin qodobkaas oo faahfaahsan fadlan muuqaalka lee ka saar oo iska sheer garay aynu ku bilownay haddaba saaxiibayaal wararka naga soo gaariya maamulka Somaliland ee uu ka taliyo Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxay sheegayaan inay noqotay shacabkii ugu badnaa in ay laysay warbixino iyo baahimin la soo saaray ayaa waxay cadeynayaan in dad mudaharaadaya lagu dilay Gabiley Sheekh Saylac Burco dhalinyaro badan oo ka mid ah maamulka Somaliland inay iska dhiibeen magaalada Hargeysa ayna noqotay dadka in ay beegsanayso iyada ka fakar duwan taas oo dhibaatadu ay ka dhalatay ictiraafkii ay ka heshay dalkaasi Yahuudi ee Israa'iil waxa kaloo dabka arinta ku sii shiday markii ay sheegtay inay safaarad ay ka furan doonto magaalada Qudus ee dalka reer Falastiin ee xoog ay ku haysato Yahuudi ee Israa'iil halkaas oo la sheegay inay safaarad ka furanayso culimada oo iyadana arintaasi ka kacday culimada qaarkood oo loogu baaqay iyagana in dil toogasho lagu xukumi doono sida ay warbaahinta inta badan aad ka daawateen xukuumadii ugu badnayd dadka shacabka ah caaburisa laysa ayay noqotay oo soo marta maamulkaasi Somaliland saaxiibaya xaaladda Somaliland oo noqotay mid cakiran dadkii oo la caburinayo qaar la xirxirayo dadka booliska ay laayeen iyagoo banaanbaxaya oo dad rayid ah oo dhibaato iyo dhaawac loo geystay qaar isdhiibay iyo qaar dhaawacmay oo ilaa xukuumaddu ay si daaweyn waxyaalihii dambe ee ka soo xusbanaaday Somaliland oo imika colaad foolanaysa muuqaalada dambe ay ku daawan doontaan fadlan muuqaalka laga saaro share gareyn